dhulkeena ayaanu dhimanaynaa qaraariyo habeen difaacayna naftiya dhiiga. askarigan sida isxilqaanka u qurxinaya goobaha taariikhiga ee dalka xoolo gooniya kuma qaato marka laga reebo xuquuqdiisa askarinimo oo qorigiisa iyo ciidanimadiisa uu ku dhacsado, laakiin toddobaadka xorriyadda awgeed isaga iyo madaaliyaal kale oo qaranku leeyahay kana mid ah ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxay isu taageen sidii ay u soo celin lahaayeen bilicda taalooyinka qaranka iyo goobaha kale ee waddankeena taariikhiga u ah si loo maamuuso maalmihii gobonnimo u dirirka geesiyaashii Soomaaliyeed ay dalkeena ku xoreeyeen. xilliga aan shaqada heeganka aan ka digay haddana si volunteerina dalkayga haddana waqti aan ku bixiyo aan isku xilqaan yaa wax kugu siinaa laa shukr calaa waajib waa dalkaaga waay aba iskale dalkaaga waay muwaadin aad laajimatid. mar waa askari iyo daljir dadkiisa ka hortaagan argagixisada, marna waa farshaxamiiste u qalab qaatay qurxinta taalooyinka qaranka oo maalmaha xorriyadda. waa sarkaalka u xilsaaran ammaanka iyo bilicda taalada dhagaxtuur ee magaalada Muqdisho. saacadaha heeganka ee har iyo habeenka marka uu dhammaysto halkii uu nasan lahaa waxa uu si isxilqaana ugu qalab qaataa qurxinta xarumaha danta guud. aniga sarkaal ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed haddana taalada dhagaxtuur amni ahaan gacanta ku haya saasay tahay aqoonteeda farshaxan waa ee qurxan mifan xilliga aan shaqada heeganka aan ka digay haddana si volunteerina dalkayga haddana waqti aan ku bixiyo aan isku xilqaan dalkaaga in howl wax lagu diro wax macquul ma haddana maalmaha xorriyadda in lagu sheego waxaas qaba lagu dhaho aaba xaraam xilliga corona hadda u dhacay shiinaha waa aragtay isbitaal hal maalin lagu dhis oo 10 milyan oo qof caafimaad wax loogu qaban karo maxaa dad ay ka go'an tahay in ay wax qabtaan waay laakiin annaga bulshadeena waxaan leenahay madaxda maxay dawladda wax u dhisi weysa dawladda maxay saas wax u yeeli weysa iyo macna waxyaabaha macna lahayn oo ay waqti ku bixinaa TikTok balaay wax waqti lagu dhuminaa laakiin dalkiisa inuu hal daqiiqo ku bixiyo maro inuu wax dhiso maro inuu wax qabto maro. xidigle asluub Daawud Cabdi Salaad oo ka mid ah madaalayaasha qaranka ee sida isxilqaanka ugu adeegaya dalkooda wuxuu si dhab ah u rumaysan yahay in si iska wax u qabsaa dalka lagu dhisi karo. ranjigii gobolka naga saaciid saasay tahay anaga tiim 5 qof ka koobanaana oo asluub 3 qof asluub ee ka tahay 2 qof ee dhalinyaro tahay oo Soomaaliyeed hal daqiiqo hadduu ku bixiyo waddankiisa wax qabad leh oo ku bixiyo bulshada dhan la isku tagto wax badan la qaban karaa wasaaradda badan la dhisi karaa waddanka oo dhan la dhisi karaa. dhalinyarada kuwooda aaminsan inaan dalka shaqo laga heli karin ayuu ku dhiirigelinayaa inay xirfado abuurtaan si isxilqaanana dalkooda ugu shaqeeyaan halkii ay doonyo iyo dheef fadhiga ugu timaada sugi lahaayeen. haddii aad isleedahay shaqo ma leh dadada waxay ku leeyihiin baagamuunta ay shaqo ma leh shaqo waa buuxdaa laakiin ma rabiyo shaqada dalkiisa inuu wax hal daqiiqo ku bixiyo ma rabiyo shaqo interest u raadinaa shaqada adaa abuuro kara adaana sameyn kara adaana qaban kara. Maxamed Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.